Ganacsade Maxamed Yusuf Cali Gurey oo ku dhaqan dalka boqortooyada Ingiriiska ayaa deeq raashin oo dhameystiran soo gaadhsiiyay 200 oo qoys oo ku dhaqan deegaanka Badweyn ee gobolka Saraar. Deeqdan oo loogu talagalay in lagu gargaaro bulshada abaaruhu saameeyeen ee jiidaha gobolada bari ee Soomaaliland ku dhaqan. Maxamed Yusuf Cali Gurey ayaa si ballaaran uga qayb qaata kaalmooyinka loo fidinayo bulshada reer Soomaaliland ee xaaladda abaarta ka soo kabanaya. Axmed Sheekh Cabdilqaadir oo ah wakiilka Ganacsade Maxamed Yusuf Cali Gurey oo ah ganacsada deeqdan soo dhiibay ayaa sharaxay ujeedada deeqdan looga gol leeyahay. aanu halkan maanta ku qaybinay 200 oo qoys raashinkood iyadoo aanu ugu talagalnay in dadka degmadan degan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadkiisa hoos saaro. Maxamed Yusuf Cali Gurey taakulaynta oo soo taakuleeyay dadka ay walaalayihiin. waxaan kaloo aan halkan uga mahadnaqayaa maamulka isaguna tuulada Badweyn oo aad noola shaqeeyay ciidamada nabadgelyada iyo odayada madaxda deegaanka Badweyn odayaal waxgarad haween deegaanka ku dhaqan ayaa u mahad celiyay Ganacsade Maxamed Yusuf Cali Gurey oo kaalmada raashinka dhameyska tirana bulshada danyarta ah ee deegaanka ku dhaqan u soo dhiibay. waxaan u mahadnaqaynaa Maxamed Yusuf Cali Gurey oo inoo soo gudbiyay raashinkan maanta aynu ku fadhino yaa 200 oo qoys. waxaan ugu mahad celinaynaa mar labaad Maxamed Yusuf Cali Gurey Ilaahay ha ka jaasiyo. halkan waxa maanta dal lagu qaybinayaa oo nin muxsina Ilaahay khayr ha siiye ninka la yiraahdo Maxamed Yusuf Cali Gurey oo degan wadanka UK uu halkan ku soo gaarsiiyay dadkan tabaalaysan ee abaarta xoolahoodii ay ka naafaysay 200 oo qoys. isaga iyo guddiida uu soo xil saartay ee soo gaarsiisay dadku iyo tuuladuna ay uga gudoontay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. daanu nahay tuulada Badweyn waxaana la gudoonsiiyay raashin dhan 200 oo reer waxaana na soo gaarsiiyay oo waxaana noo soo dhiibay oo deeqdan noogu soo deeqay Maxamed Yusuf Cali Gurey oo jooga UK. Maxamed Yusuf Cali Gurey mahad baan u celinaynaa maxay ahayd raashinka uu noo keenay maxay ahayd isagana inay ka jaaysiyo anagana ha noo calfo.